horta aan idiin sheego saaxadda siyaasadeed waa sida ciidanka oo kale. ciidanka marka guuto loogu yimaado xero ay fadhiyaan oo sawaariikh lala dhaco oo la duqeeyo ciidanka hanbabareye wax turturaya ayaa miidiyaha oolaya mise ciidankii jabay ee la jabiyey ee xagga ilaahay laga jabiyey ee xagga shuruucda laga jabiyey ee xagga siyaasadda laga jabiyey ee lagu caddeeyey inaan ictiraaf diid jirin oo aanay fallaadhi gilgilasho kaga hadhaynin oo baytalmaqdis arrintaasi ay tahay mid ay diideen 128 dowladood Somalilandna ay u baahantay sasabasho saaxadda diblomaasiyadda iyo saaxadda siyaasadeed oo ay u baahan tahay ummaddan iyo shacbigan dunida inay bariyaan maadaama Xasan Sheekh Maxamuud diiday inay one by one u soo helaan oo casharkii loo dhigay sida ay u galayaan iyagoo homework loo dhigay oo la yidhi one by one ayaad u baahantiin dowladaha ina xaashi wuxuu dhigay 750 dowladood inay muslim yihiin ayaa la yidhi qalin soo qaatay daada socodka soo baro. That's what I call it diplomacy. That's what I call it siyasi. That is what I call it leadership, vision, imagination, education. That's what I call it hogaamiye. in 108 dariiqo lagu helo saaxadda ictiraafka jamhuuriyadda Somaliland saaxiibtinimo iyo cilaaqaad dunida oo dalbay dal loo helo marka 750 dowladood ictiraafka muslimiinad ictiraafkii u diiday ay aad la fadhiisatay yani qodobka uu xusayna xaashibaan idin ila xasuusinaya dunida diblomaasiyadda ay maaha turkishka la isku kuda Erdogan waa sida odayga bin Saud ilaa Cabdiraxmaan ilaa ciyaalkiisa ilaa taybayada meesha jooga wixii baa aflagaatay meesha la fadhiisteen dunidin bicaayeen caalam islaam wa caalam arabiya cidda la yiraahdo war halkaas sida ma samayso iyadoo hooyadeed aabaheed at the same time waxay ka hor yimaadeen 128 dowladood iyadoo dunidu 195 dowladood South Sudan u dambeysay. Can you imagine? casharkii siyaasadeed baa loo dhigay markaasaan odaygii buurta aan saaray ee buuraha nala fuushanay ee siidhiga sitay aan idhi waa diblomaasi caada diblomaasiyadii loo qaawiyey dharkaa laga saaray misaal idhi waa tan diblomaasiyadii waa barayn iyo baclaha laga keenay shaarkana xidho surwaalkana xidho kabahana xidho diblomaasiyadda waa loo labisay diblomaasiyadii baa loogu labisay wallaahi baan idinku dharanaya iyadoo aqoonaysan oo cilmiyeysan baa loo labisay madaxweyne dadka khaldan baa la yiri ictiraaf ma sidide ictiraaf South Sudan baa shaqaramada midoobay ayay kursi loo dhigaa ictiraaf Eritrea la siiyay waa dawlad bakiga ay maftalaca ma hata hubka soo iibsata kursiga qaramada midoobay ku fadhida kursiga igaad ku fadhida kursiga Afrika ku fadhida and that's what we call nation ictiraaf laakiin cilaaqada la sameeyay bani Israa'iil oo baytalmaqdis ku soo bedeshay oo gaalnimo ku bedeshay oo dastuur jabin ku bedeshay oo wax kasto diinta islaamka ka hor imanaya aad ku bedelatay kala ina kitaab al-abraar la fi qalliyun baali sida uma shaqayso siyaasaddu laba dariiqo mid qaad baali wada hadal in Allah gasho Xasan Sheekh Maxamuud warqadii ka soo qaato iyo inaad one by one cilaaqaadka caalamka ma aha ay Cabdiraxmaan سيد دبلوماسية وحول العلاقات لا سميسو ما هاي ما هاف لقادي بن سلمان جلالة الملك بن سلمان حفظه الله ورعاه ولينا وولي العهد الأمة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه وجلالة ملكنا سلمان سوق عيودك لغمورا بالبليدي سياسة الدبلوماسية تصال مش قيسو دولتها علاقات كسفارتها كراقاتين دولته السوق كما soo caayaan ciyaal wasiir lagu sheegay kuma balamiya bin Salman baana gaar suuqa kama yiraahdaa adoo shacbiga saaka gaajo ku diray ayaad ogtay bin Salman iyo dalka Sacuudigu caawa haduu ariga inaga joojiyo inay laf dhabarta dhaqaalaha jamhuuriyadda Soomaaliland jabantay
xaashi wuxuu ku dhigay in waxaynu isku haynaa waxa aynu sunnay ka weyntay oo dalalka carabeed reer sheekh saxaaq ay wada shaqaysanayaan kumanaan sano dah baa lagu yidhi socodka soo baro in hadallada gafka ah ee meel ka dhaca ee meel loo dayin ee jariska xoornimada leh ee jaamacadda ka soo baxay suluuga ee diblomaasiyadda kaymaha iyo diblomaasiyadda buuraha iyo diblomaasiyadda ciidamada madaniga maaha baa lagu yidhi dunidu soo ma shaqayso sacuudigu caawa haddii uu xanaaquu joojiyo lafdhabarta dhaqaalaha jamhuuriyadda somalilan adoon gacjooniya guriga lagugu soo dareeraya shacbiguna beerka ay dhulka ku qabanaya waxaa ku dhaataynu dibadda u dhoofinaa deked ahaan cashuur looga qaada qaranka jamhuuriyadda somalilan waa dekeda yaariga waxaa dhaqaalaha hard currency-ga iyo lacagta adag ku soo noqotaana waa biilasha qurbaha laga soo diro iyo hard currency-ga sacuudiga ka imanaya oo arigay iibsanaya inaad ملك سلمان حفظه الله ورعاه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بن محمد بن سلمان عصوغه فريسة سياسة ما هذا البيجي سياسة ما هذا البيجي إما تنوانو كل شيكنا معها سياسة and that is not politics معها سياسة سياسة ما هبال قولي تاصير دولتها إن العلاقات لا سميصوت 1 by 1 وكان تانا والسياسة بالقولي لكن ترى السياسة ما هبال قولي ما تضيق 10 عادي يا الله دقا يقول داوعي ميدكم يلهان كي يالو أي يقول لي بيسكو دي ميلتري أي قولي كساطورة يعني فأيك فودي سبنا أزي حرسي قابل لي حضر حالو بحضر يعني ما مربد بيت المقدس ميال وكان قرينا ميات هذا مدحوينه wuxuu ku dhaartay dalka dadka iyo diintii miyaa laga noqonayaa baad ku dhaartay miyaad baarlamaanka marisay heshiisyada soo gasheered saxiixaysay waxaad madaxweyne ku tay hal qodob oo dastuura sidoo xaashi ku sheegayo waxaad jabisay qodob kamid ah qodobadii dalkan ugu adkaa wax kastoo diinta islaamka ka hor imanaya inay tahay qeyr dastuur cabdiraxmaan oo intii ololaha lagu jiray hadday ku martay diblomaasi baan isaga waxaan ku leeyahay bal iskuulka diblomaasiyadda dib ugu noqo marad xaashi fiidkii ka dhigatana evening chorus laakiin maanta in badan baa lagu siiyay wax badan baa lagu fahansiiyay bil xaqiiqa maanta saaxadda siyaasadda wax badan baa lagu fahansiiyay waxaa kaloo la cadeeyay inaad character assassination ka xariif ku tahay canjaradihii madaxweynayaashii hore googoysay oo daahir yaala canjaradiisii googoysay oo canjaradii xaashi googoysay oo tii madaxweynihii hore jamhuuriyadda Soomaaliland alxaq Muuse isagana aad googoysay oo madaxda hore oo dhan canjaradahooda googoysay culimadu u sheegnay culimadu way kaaga wada digtay maalintaa labadii aad xidhayba hadalka si nin baa toos u hadlay wixii madaxweynuhu noo yeero waxaana ku nidhaan inta bayt almaqdis ka daa oo ka noqo uu faraadayga markii diinta loo sheegayna uu fororsado madaxuu qabsado wasaacadii iimaanka ugu dambeeyay ee madaxweynuhu aanu iibin samanan qaliila biaayatillah iyo diinta dalkani uu leeyahay iyo cardiga iyo karaamada shacbiga jamhuuriyaddu ay leeyihiin oo aan hawada looga bixin سأنا أنت وجودي كرتا مركع علماء نحوش شاكنا ميات كقاعدة ميات كدودي كرتا ليبان باي صاقراي تلا دا كسيه ميات قاعدة ميات كدودي كرتا مصابي حي صاقراي تلا دو كسيه ميات سوديسي ميات قاعدة ميات شعبي قيادة عن شرطنا ما يسترنتين سوديسي ميات كدودي كرتا ظاهر ريالا ييمي ميات قاعدة ميات عن شرطي سوديسي تلا دي سي ميات قاعدة ومايا marka cilmiga weydiinay ganacsatada weydiinay deeta waxa la yiraahdaa character assassination waa dambi in dadka loo wanjalo oo hadaladoodii been laga sameeyo waa qeyr dastuur waa sharci daro dhammaantood way kugu maxkamadayn karaa madaxdii hore oo dhan iyo ilaa xisbiyada qaranku jamhuuriyadda ilaa culimadaba
وهالكي موسى بين على كما وران كرنا لكن runta lagugu tawgalay mar hadaad hadalkii daayriyaal soo day weydii runta lagugu tawgalay musabixina inta sunbu ku jiri waxa tirigin kara karu tagay bixintu tagay Taiwan buu keenay 2 milyan cusbitaal oo keenay ina xaashigan iyo Axmed Siraayo waxay keeneen dekada 250 milyan adigu maxaad keentay marka laga yimaado nacdal baa sidaayay Baytul Maqdis baan soo bixiyay maxaad sidaa سو واحد سيدا عذابي غير دستور معها سو شرعي درها معها تبرك عندهم وحبس سيدين عد باو حماي صيحة أوراني ثلاثة أول قصيها علماء واضيين لكن ثلاثة قصيها ودي دوات كلا حتى علماء ده أفكار ضنوغا شاكتين شيخ مصطفى الديدي شيخ هو الميجرة تيفي كنا قالها الله عالم اسمعنا قالها الله شبعان بانا قالها الله شيخ در بانا قالها الله شيخ كاري بانا قالها الله ركبة تفاسير كبحية ولا هذا الكيني إن المدح قبصتي مركي أي كود ديدين علماء ضروري هذا تعمل منطقة عنه وزارة هو قافطة أفرتك قضية الكتاب حورة لتسديد معها وزارة الدين دي أغلطوا لي قد الديني بقول لي عند راسك بساتي وحلقات تصبح يضع يصلي يدي كهربدة ده وعند راس الله يلقواسي هم وزارة الدين دي أغلطة وزارة تصبح ولسه هي كلية أي قندراس لو قاطها ما كانت وسارة ويجي ما هالدين لكن وما ضل ويا شهادتها إلهي بين الله رحم مركا وضيق رنتي قضب بدن أو علمي يا أيام أنت لا ضل جاي ولا ودول استاتشي أو وحوي one by one عشان هذا الله قدره one by one أي عشان هذا الله قدره لكن هل قدم له فايدة ما أنت والشعب يقول له فايدة لما تقول تقال ده كوكالات كارين تايد هالكاي نودغو وين سلو ده فانسني وان سوق بنايه لكن هل بأمان تلفايد عبد الرحمن يكوح ديس وحيدونيا شعبك إنay ku caburiyaan inay ciriiri inay galiyaan masaajidada in warqad jimcaha waxay ku khudbadaynayaan loo qoro in la kufsado dastuurkii jamhuuriyadda illa balaayka meel galaya culimada ahlo karamka ee ilaahay quraankiisa inoogu sheegay as'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuun kuwa lagu ducaystay leeyahay Allahumma ij'alna lil muttaqiina imaama xaashi saaka wuxuu noqday seefiyarka badbaadiyaha diinta islaamka culimada iyo shacbiga lagu caburinayo qadiyada diimeed ay xaq u leeyihiin ee dastuurkoodu qeexayo wax kasto diintooda ka hor imanaya inay tahay constitutional Cabdiraxmaan hal qodob oo codka dadweynaha markuu madaxweynuhu helo lagu siinayo ayuu madaxweynaha ku yiri ما بخار وليي iyo dukaan u leeyay ma gadmad duxira oo gudub iyo go'da yar kala yimi oo tuurta ku sito wala toosiyay runta loo sheegay sara loogu sheegay inay taritay jamhuuriyadda Soomaaliland aan ahayn bakhaarka ama shareholderka Cabdiraxmaan Ciro iyo dukaan u leeyahay ma hadaynihi dhuxusha lagu qaatay wala cadeey Cabdiraxmaan waxa la yiraahdo hal qodob oo kamid ah madaxweynaha ku tahay dalku wuxuu ka kooban yahay maxkamad sare baarlamaan dastuur iyo dawlad xasanaanta lagu siiyo waa dastuurka waa ka yiri wax kasto diinta islaamka ka hor imanaya waa taa aniga ma Falastiin baad ii doorateen kuma aanan dooran adaaba shalay u doodayay Falastiin iyo Baytul Maqdis miyaan ku dooranay miyaan ku gudbay socday ma gudoomiyaha ahayd ma anaga ku farnay soo inta dadku iska soo fariisatay ma dooranin Baytul Maqdis yaan la rushayn يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون روحان إلهي بيد نوران سيدة ما دولار تمات عبد الرحمن ما ينحى حاشاك يجري على الهوا هنتيسة ويدوبنتي وانتوان هاينا عن تلديه كيت كاجي ودنا ناهية حتى تفعل هذا ورك سودي سوان كوها يا فعل دي ورك سنة دي أفر بلاد بوحن ورورينا يي كيت كاجي دما صبح هذا شغل بوينتي كات هذا شو عصر كبسوق ويا لأن يرد الله قيبنا كيد كاجي بان هيا سو كان كل جوج عمل كاجي waxa la qofku qareen buu leeyahay qareenkaagii baa kula fadhiya koor fadhiya marka xagga naga barbaarin isla minidkaba waa lagu keenaya waa lagu soo deynaya inta la dhaxay suuqaani wadayaalaha haqaltamin ana dareer madaxweyne fallaari gilgila shakaaga ma goodo hadalkiina xaashisaaka wuxuu ahaa justifiable wuxuu ku mutaystay milaayiin taageero shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu hantay maanta qulubtii jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ka xayubiyay xilkii adigoo ku fadhiya shalay bay ceeb kugu ahayd nin tagay ila tabo waa ka jooga ceebtii saakana waxa kugu darsaday
kasoo socda in la hadal hayo adiguna aad ku dhex jirto kii tagay kasoo socda dhexdooda oo bila saamay noqoto inkaar ka weyni ma jirto inaad u dhaxayso kii tagay iyo kasoo socda dhexdooda nolol ka dhex raadiso miyaad dhimatay adigu miyaad noolay xaashi muuse waxay waa madaxweynihii toddobaad oo soo socda iyo madaxweynihii tagay labada qaawo qowsayn dhexdooda inaad ku noolaato that is not politics that's a political suicide waa dhimasho siyaasadeed waa jariska tuurid siyaasadeed waa daaladhac siyaasadeed cod ma jira ama la maqlaya waa daaladhac shaashada inoo qaraaca culays bayna fuulaye waa daaladhac siyaasadeed waana ta kugu kaliftay inaad oydo war xataa yowm addiin waa nabar kugu yaala ilaa aad golaha baarlamaanka intaad tagto tidhaahdo arrinkayga diida oo dib uga noqoto mooyaane laakiin xataa yowm addiin dhakadaaday saarantay cabdiraxmaan cid aad saaka ku caburin kartaana ma jirto guddoomiye xisbigaa hadlay caruurtana kuma caburin kartid masaajidadna kuma carabi kartid the record is breaking wuu jabad intay raggan ay aamusnaayeen ayay shacbigu waxaan moodayeen dee inay aakhiro la isugu dirayo laakiin waa la jabiyey recordka muuse biixaad u heesto waxaa tiri solberi haddee xaggeed geysay laakiin heestaadii baa soo socota qudus xaggeed geysay صلوا على الحبيب النبي كفو صلي والقدس حقيت جيسي عليه الصلاة والسلام رقنا شري واحد وهيسي صول بري حقيت جيسي إسلام نمدي أشهادي حقيت جيسي دينتي دل كان لها حقيت جيسي قبل يوم وطني لها حقيت جيسي سؤالنا كوريا لكن شري بعد ركة قد جنيسي انترتينمنت إيه الروايات دقال ده بدي سكوتشرتي ساكنه waxa ku hor yaala ilaahay raga foo keenay inuu sakaaga mantago inaad ardigii karaamadii iimaankii islaamnimadii اليوم أكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا waxaan idin dhamaystiray nimcadaydii islaamna waxaan idin kaga yeeray diin laba qiblatana waa leedii ninka mid kamida iibsaday بريتو ما wuxuu ku doodayay aniga ma waxay doorateen Sacuudiga hadduu Netanyahu caawa qabsado xajara laswadka iyo buurta Carafa miyaad nala hor iman kartaa adoo qiblada yadii labaad الثاني قبلة الثانية في الحجاز هدات سو يبقيسو هل كانوا انتو كانين عاوة هدات ترى هذا اعتراف بان كسو قاط او ما كبري كيدا ما هي قلبيت كيدا كسو قاطا ياد كيبينيسا عندنا عبد الرحمن فالاري قل شكاكا ما قطو شعبي قلنا يقو يابانو كلا يابي إنا ترى مصبيحي إنا حاشبها قراندومي سو الدولة ديدن ساكا waxaa lagu yiri daadax socod ka soo baro wax qosli iyo wax faraxsan iyo wax media ku jira ayuu yeeshay majority-gii shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland nin ilaahay garabkiisa ka baxay oo ilaahay bug dhabayana cid qaban kartaa ma jirto Cabdiraxmaan ilaahay baa garabkaaga ka baxay dibihi ilaahay baa darandoori kugu socda nin ilaahay garabkiisa ka baxayna shacbi garab u noqon maayo shaydaan mooyaane sida xisbiyadii ugu waaweynaa iyo madaxdii hore qaranka iyo shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland baa u qiraanay dad islaami yihiin waa kugu kaliga iyo shaydaan saaka shaydaanka isku heshitaa laakiin shacbigu way dabaaldegay xaashina waa noo cadeeyay waa lagu horkacay madaxweynaha toddobaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland waa kugu kaliga iyo shaydaan cid kale ku kala socotaa ma jirto اعتراف كنا شعب كايس كره دين كبحة بحنت بيت المقدس نواكوكو كلجا في الشيطان عندها دونتا يرسكها عندي عارفة كوكولات رسايرسو لكن هو كوكو كلجا دستور كدبو كبحي وحكستو دين الإسلام كقاري معطى مدحين يا شهر ندبي وقبحين أحسابتي قرن كل الدبي وقبحين شعب يقول الدبي وقبحين تشجع يميت كاجسيدو دين ده هذا سيدو هذا واحد مبارك عبد الرحمن هاوي حلا قايلين إنسان
يعني يا oh no don't lose your temper مدحويني don't lose your temper taasay aakhirana dambaysaa wuxuu yiri inta marayka seegtiyay masaanif xataa joon garan ka suudaan maratan yaa hubaatay aakhira dambaysaa Cabdiraxmaan ha qaylin ana aqal ma qasanta dastuurka hor keen baa lagu waana qaylo dastuur qudusna ma ogolin baa lagu laakiin ma caayisa ana qasanta حل لسانتي حنيا رجع كوجي ما عاوز ترجع كوجي مدحويني هذا باريراي هيك جوبنين فلا رجل جل شك حاجة ما قاطع لكن أنا ترى كوسينيا شلي بينا إسكا وتو ساكنة كو عصنا يميد كاجي ترى مكوسيا قال برلمان كمري يجديد دي تحت رأنتني هو اللي يجديد وقال برلمان كي يجديد فات كاي سفر تريك بحي عندها عزبالي إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إن عاشنكم هذين كرو استغرقكم هذين كرو نقولكم هذين كرو إلهي بوي حدية إن الله يهدي من يشاء لكن وحنا أنه حق لنا إن أنا كسر نكرسنا أن الدفاع عن الدين تيجي تطلق يعرضك يجي دستورك يجي waxay shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland xaq u leeyihiin wax kasto ka hor imanaya dhaqankooda diintooda iyo dastuurkooda iyo midnimadooda iyo wada jirkooda in laga saaro saxada siyaasadeed ka waa lagu toogtay Israa'iil baa tagtay adoon asxaabtii kala tashan oo aan shacbigii kala tashan baadna wada wanjashay shacbiguna waa kii qayliyad xidhay saakana xisbiyada hadlay lagulama socdo markaa imikana wal jasiire ka sii deynayna CNN ka sii deynayna TV-yada caalamka ka sii deynayna in xisbiga ugu weynaa dalka jamhuuriyadda Soomaaliland uu diiday aragtida annaguna aan ku raacsanay haddaan activisteyaashii ugu waaweynaa qaranka kugu kalimeeyay less than 5% dadka ayaa kugu taageersan waxa 5% kana gudub iyo god yar baad ka keenta waa inta qadaraasiyada qaadata iyo de ibn Salif oo meedan weeye shaashada inoo qaraaca وحبو صوتورة يا شاشة إنه غراعة حبو إنه صوتورة يا شاشة غراعة وهي هذا بقى عدسك على السيرية غير سومالي لأنه قرأت تنشعري أنا يهرت قضب كان كهلا خلاص سومالي آخر كتنبال السيرية إيه سومالي ذا كلام بدي ما أنت هو شو بدي أنت بيت المقدس وهي سومالي ده نساكو دوهم بيبيه دو أنت قدس بالك هلي iyadoo siyaasadda Soomaaliya ay kala duwantay haddana dadku waxay ka hadlayeen daarinta qudus oo aad loogu qushuuxa qof kasto islaam ah shahaadanaya yaani ninkaas maanta waa ka farxiyay qof kasto islaam ilaa ka Colombia jooga dhageysta uu farxay waayda Soomaali maxaa helay baa la dhahaa marka waxaan leeyahay dadka reer Soomaaliland quraata horta ka hadlaa intay saameynayso fadlan u daayay qofkii soo galowna mute gal mute gal fadlan xisab loo kala sareeyay inay idinku dhiibaya mute gal mute way and Bismillah iga hormarana ها أنا قرال بان برنامج كغيبتي ستنبان السينية محمد وايو سولو diiwaana waan ku salaamay waan dhaway in adeer in badan baan ku dhageysanayay waxaan ku arrimo badan baan taabatay kullu qodbadina waa la wada dhageystay oo qof kasta oo islaam iyo qof kasta oo Soomaaliya iyo qof kasta oo reer Soomaaliland way taabatay qodbadaasu maanta ninkii xaashi ahaa isagoo in badan ka baaraandegay أنا دلنا وضيق باركان بتحيي مادان يا إلهي أنا بيان ضدك عاوز كيف حسين يا رايد يسوون وبرورنا أنا البابي وفري وحه الرئي وأنا ببلغ وشيء ما أنت سادي وكلفتين وشيء كانوا ينو كوجلاي يا حرم كانوا كوجلاي يا أدبيني سي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله تسوى أو هندي isbaanikaas هرت سيداتي waa ku soconaya يرسق haye هذا اللي يحسب عن شطية haye ميوت قال
alla de taasi waa ohin mar walba horaan horta idinku sheegay ciidan meel fadhiya haddii lagu rido sawaariikhda gantaallo xeradii laga qabsado iyo qiiq lagu xidho dee wixii ka dhaca waa khalkhaloon يعني إيه كانوا عندك يسمى والله كلمة دي هرسي واحد دت كان له شيء سعودي كان وحكوا قلا طلع واستأتدوا واحد كان يحرس كشان لما إنه هبرت على الديني أو المعذرة طلع ما هكوا كشان محيط تسكخ وسيسار أنت قدس أنا أقول رجوا حي بلا ما هي قلان يعني نكتي سكور سدان بلا ما هي قلان ده أنا ما خصيصه أنا أقول ضل كان عشورنا لقى قاعدة وإحنا لو قدرت الدين تضل كي تذكر لكن حاشا وهاته هو يذهب بس لا السعودي قاعد بري يقول تقطع دين بعد بلان بعد كبحضه حق بدات بري يقول شرط العقب بعد حضي حلقه سوق صحه سياسه سمين حلقه خصيصه وكوني صح وانا كان دلقي تدك لهاي انا معانا براوي بدي بسدو بعد كده جيستي قرعسته مظاهرات اديك دلقو مسعود برام وحو كلو يدهدان ايغه هنا درير سوق marka hore idin sheegaan idinku siyaasaddu weer codis bala wallahi billahi tallahi ninka godka siyaasiga aad ugu xariifa baa iga xaraqsan bay soo fadhisanayaan بين استعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد waxaan maanta doonayaa inaan jawaab kooban siiyo gudoomiyaha xisbiga ka Maxamed Caashi Cabdi oo maanta saxaafadda ka hadlay arrimo badan isku qaaday oo uu isku dayay inuu شعب كنا شهوريريو مدحوينه وحنقصي لكن الليس كان حنيانو كان يقول ير احنا كان يرصيا كايغا اسكوت ادغلو باراس كما تيجيس لكن حنيان يقول طرن جمهوريه الصومالي الان واعترافكي ku guuleystay waqtiga dheer la doonayeen oo اعترافك الصومالي waa hal shay laba shay la kala qaybiyo maaha سكارة لبطن ولا كلا قلم مله. بالحيل صو ساقنا واكن صومالي دنا واكن وحنا الله ينواف صومالي. إن حشوح كل اعتراف كوحنا وهنا إنه بهنا بقول يا فريسة كاش الدولة ضد مرة هدينا حمل النديدي سيدي إثيوبيا يسوي السودان يكون شيء. مرة ترى إسرائيل بان صاحي قررنا. لكن ده اعتراف كوي إنه بهنا. تدبيه كتو الدولة ضد عرب تينه بهنا. بقول سيدي يلا باتك قلت استجين وبهنا انت علمي بو بهنطي سبق يدا لانكي عرفتها قرانيه وانا ما كان يفهمني والدي ما حكاس يعني يا بلا علمي بعطي يا ضوارنتي ما انا ابن واحد دفاع انه قد يساعد ميوت قرا بل واحد حرص الدفاع انه قد يساعد وياك واي سيدا لما كافتياشا aad maanta sidaa ku leedahayna taas waa qaxoolaji abtiyaal shalay xad uu weydeenay ka dagtigo tiina musabbixi rigaal markaanu ciidanka u rakibinayna kala abtigo nimcad sheegi weyd taa oo himba la yiraahdaa wan chaloolaji baa la yiraahdaa qabiil shaqo kuma laha ina xasha anaga dhano inaan kaanu abtiga u leeyahay laakiin waa gudoomiye xisbi weeye musabbixina cad ku daabtuha liibaan baabtuha cabdikariin axmed moogaa bakar musaaha liibaan bay dadii cadar dhashay niyad habeen noogu tiri way inaan ka taawtiin niyad habeen ku tiri muusa abtiyaasha sida xidda ma soo gasho taa waxa la yiraahdaa one chalolati character assassination qodobadii laga hadlayna meel la kuma haysa taabtinimadu يعني وأوهم وي صوت هذا شيء عالكو جراي هبر لا دعي ما أويدي ما برارته أنت سنة ما أنت عادي بقى لايدين 10 لايدين كلها وحن وبروري أوهم وي بل إساق أردن تفاسير توقع حرصه إحنا كوزر ديبه اللي يساق ما حد لكره أحوي حاجة معنا تاي قلت لي ده ترى كان تصور ستين ما كيو قابلنا لك هنا كيو قابلنا نحن ابتياش ما أنت وحاول this is politics رجال مركون فرديي سقلا عين عشان دلي مصبيح إذا قال يا بكر موسى دلي إن عشان أنا قاعد لو أنا كانوا هبتك أمي لكن أعلمهم يعني نهر فرديين إنك ده عذر شيء politics is politics سياسته أبتي سيدي صحيح ما ترانو
عقال ويدي أورو دالي موسى ويدي أورو دالي عدا كده ويدي هو موسى أبتوها وبالتكس إنا كان أبتقوا إنا حاشي مدحو نوساري عقال با مدحا نوسارا ككلام مدحا نوسارا لكن سياسة دي هو وضع عقال انت سنبو نوودي إلهي جنة نحريسا كورانية إنا كان يتدي عدا بشين انتو نبو نوودي عدا قدر انتو كرسي لكم بسورد عناي خلطاني كلا إجراء ميان عندل كي نوصم يسان ندام كحساب تمدح بنان لي صدح اسبي halkay ka soo galaan abtiye diya adeeriya caasha waa oohin weeye taasi inuu yar baabka xidha inanka xirsigaale waa ayaan dafo halka sugaha maxamuud waa ku saxee waxa hadalkaaga ku jirtay xafiis inay ka furatay qudus ay Soomaaliland ka furatay xafiis ma waa safaarad rasmi ah waana dalkii koobaad ee safaarad rasmi in political language British office in Ethiopia oran kartaa waxaad oran kartaa British office UK office in UK in Mogadishu أو Somalia كم كاتو تودك office وoffice وحفيز مركو دبيت أوبو حالة قرانا يني سفارتي office وembassy in diplomatical language وembassy لكن language كحويين ما دام ودلك إنجليز office بو دبيت كويا شيء office كاسوا دبلوماسي وسياستي مركال كاسروح لسحمة بكو جرتتي waayo ofisiyada dalka ee gudaha ka shaqeeya halkan ay ku yaalaan ofisiyada dalkan ee dibadda u baxsan embassy baa naana office malaade methodology-ga luqadda afka ingiriisiga ayaanad garanaynin laakiin maca alasaf no problem mar hadday dee islaantii axmed siiray islaantii dahabshiil ee motobajaaj ku iibsay hindiya ku yargeysay meelaha shahaadadaad soo iibsataan u malaynaya waxbaana soo dhigan waxaan sii wadaba walba layga tahay xirsawdee timqol garanayo iminka intii horreysay waxaa kaa dhageystay aan ku saxay office maaha yes office embassy same because out dibadda uu baxay baa the office site haddaad tiraahdo British office in Addis Ababa what do I mean maxfiiskii wakaalada biyaha bartaa ku yaala makii laydhka bartaa ku yaala makii dhalashada bartaa ku yaala British office in Ethiopia hatta ku yiraahdo xafiiska Ingiriiska Ethiopia tag ana la igu yiraahdo marka dalalka ka cabanayo go to our British office in Somaliland bal igu maalintii u xidhay aan speak to Mona inanta Mona layra laakiin ay oran British embassy or go to Ethiopia bal igu our nearest office xafiiska kale kugu dhowna waa Ethiopia bal igu or go to Mogadishu our nearest office waa telefoonka bay galaan lahayd marka embassy office makes no difference laakiin waxaan soo kala hadlayo in xafiiska halka laga furay safaaradda halka laga furay lahjada toonto dhigo makes no difference marka waxba iimaad sheegno waxaan ka hadasho waan garan waay waxa jira Sacuudiga ballan kula gashay taas between you labadii meey taasi tahan islantin tidu shacbiga ma khusayso Soomaaliland ma khusayso maxaa kale tirid كان له عيد واحد سي وضع ولي بلاقطي لكن انت انا كنا جاي سمع سيو جايين تشوفي تقول ما قنطي ترى waxa la yiraahdo istifaac ku bada waa laba qaybood waa qof istifaacaya iyo qof weerar ku jira kaba badiya weerarka gool ku dhalaya aakhirka difaac waa laga dhex saaraya waa inay weerar tagin sababtii goolka lagu dhalinayay ma ay sameeyeen marka احنا استفاع baa la yiraahdaa self defense have no place in politics that's what we call dadka yaga saaxada siyaasadda daraaseeya political suicide taana lagu meeyi no ninkan kuma oran taana meeyi wuxuu ku waxa waan diidnay waxaasna waa qeyr sharci waxaana naga barta qof kasta oo saaxada siyaasadda garanaya ilaa islaamta khudradleyda muuska iyaba way garanaysaa وحين حاشك عضلي وانا سبت لو قشوعي عندكم هذا ليس عندكم عاوب الصاير والله كتينا عندكم هذا العيني تم حلقه هذا العلماء تشيغنا دو استفاع بعد كجرته نينكي قضبده كهدلay baad dakada uga baxda marka aan maxan baray
ganacsatada mudaharaadaysa ee shiidaysa wasaaradda maaliyadda adigu kuma jirin waa kuwa raashinka waaweyn keenaya khayr xariif booha maanta aad biiga qoslay halkay kala socotaan waa idaacadeenii radio alcadaala waa anigoo detective sayid liibaan samatali soo falanqeeya amuraha siyaasadda sidoo kale dooda xoqal insaanka waxay inoo furan qaybtii radio showga salaadii maqrib ee dalka ingiriiska ayay taagay hadda stuudiyaha cashaqdahan dib baynu halkan soo fadhiisanaynaa haddii kalena qaybtii kale ayaynu ku falanqaynaynaa oo aynu qaada dhigaynaa hadal badan